boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha juun waa 9 sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan. haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo al-shabaab ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Mareykanka marka taas ayaa ugu wacan inay dawladda Mareykanka ay dadna uga dhintaan runtii. waa wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Fiqi oo ka warramaya kaalinta ay ciidamada Mareykanku kaga jiraan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo caalamkaba kadib markii shalay al-shabaab ay dileen askari Mareykan ah qaar kalena ay dhaawaceen waraysi ayaanu idinka haynaa. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo xalay afurkii ku dishay degmada Awdin leh aabe iyo hooyo ku sugnaa gurigooda dhexdiisa faahfaahin ayaanu idinka haynaa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh ururka al-qaacida ayaa weerar ku dishay hal askari oo Mareykan ah sidoo kale waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay 4 askari oo Mareykan ah waxaana ugu yaraan ku dhintay 2 askari oo Soomaali ah. ciidanka Mareykanka ayaa waday howlgal ay ku taageerayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada ee al-shabaab. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigaasi Mareykanka ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhoweyd bartiisa Twitterka soo dhigay dhambaal tacsiya oo u diray eheladii askarigii dhintay ee Mareykanka iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. dambibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray inuu soo baaro eedeymaha ku saabsan xiriir dhex mara dowladda Ruushka iyo ololihii doorashada ee madaxweyne Trump ayaa cadaadis dheeraad ah saaray madaxii ololaha doorashada ee Trump Mr. Manafort. dambibaaraha madaxa bannaan ayaa eedeymo dheeraad ah ku soo oogay Manafort waxaana lagu eedeeyey inuu isku dayay inuu la xiriiro qaar ka mid a dadkii isaga ku markhaatiga furay si uu ugu qanciyo in ay hadalkooda wax ka bedelaan. eedeyntan cusub ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu xafiiska dambibaaraha madaxa bannaan ku soo oogo Manafort waxaana eedeyntani ay tilmaamaysaa in uu si ula kac ah isugu dayay isaga iyo kaaliyihiisa inay isku dayeen inay si toosa ula xiriiraan 2 qof oo aan la magacaabin oo ka mid ahaa dadkii ku markhaatiga furay iyaga oo rabay inay isku dayaan in ay ku qalqaaliyaan inay hadalkooda wax ka bedelaan. subax wanaagsan dhegaystayaal iyo Ramadaan Kariim mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. sidaad warkaba ku maqlayseen kooxda al-shabaab ayaa weerar ku dishay hal askari oo Mareykan ah sidoo kalena waxay weerarkaasi ay ku dhaawaceen 4 askari oo Mareykan ah sidoo kale ugu yaraan 2 askari oo Soomaali ah ayaa ku dhintay weerarkan. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya. ciidanka Mareykanka ayaa waday howlgallo ay ku taageerayeen ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab. weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Sanguuni ee koonfurta Soomaaliya. sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigaasi Mareykanka ah. ciidamada Soomaaliya iyo askarta Mareykanka ee caawinayay ayaa ku guda jiray in ay dhufaysyo qotaan difaacooda iyaga oo xoojinayay xilliga ay al-shabaab la beegsadeen weerarkan kadiska ah. dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in al-shabaab ay dhowr qarax la beegsadeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka ee wada socday kadibna ay rasaas xoog badan ku fureen. goobjoogayaasha ayaa intaasi ku daray in diyaarad nooca qumaatiga u kaca ay qaaday dhaawaca. bishii May ayaa hal askari oo Mareykan lagu dilay tuulada Dar es Salaam ee gobolka Shabeellaha Hoose. askarigaasi ayaa noqday kii ugu horreeyay ee ciidanka Mareykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993 xilligaasi oo la soo riday diyaaraddii ciidamada Mareykanka uu lahaa ee nooceedu ahaa Black Hawk. kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay qaadayaan tan iyo bilowgii bisha barakaysan ee Ramadaan iyaga oo sheegtay weeraro badan oo xidhiidh ah oo ka dhacay gobollada kala duwan oo dalka ah. aad iyaad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay kooxda al-shabaab oo weerar ku dishay hal askari oo Mareykan ah sidoo kale isla weerarkaasi ku dhaawacday 4 askari oo Mareykan ah. haddaba muxuu yahay doorka ay ciidamada Mareykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka? weerarkan Soomaaliya ka dhacay saameyn ma ku yeelanaya howlgallada la dagaalanka al-shabaab?
caashe ibraahim aadan ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ahaana wasiirkii gaashaandhigga cabdixakiim fiqi oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka. waa mahadsantahay caasho. sidaan ka warqabnay sababtaas intaanan gelin waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada soomaaliya ka jirta maanta ama khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin al-shabaab iyo ISIS. marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo al-shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interestga waddanka Maraykanka. hadday noqon lahayd regionka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin regionkaasi. marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Maraykanka ay istiraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro al-shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii. askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni isaga wuxuu ka tirsanaa baa la yidhi ciidamada Maraykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamo Maraykana oo caawinaysay ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. marka markii hore waxaan ogeyn in kaalinta dowladda Maraykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka al-shabaab iyo kooxahan kale dowladda ka soo horjeeda inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaata ka soo gaarayso. maxaa taa ugu wacan? waxaa ugu wacan isbedelkii siyaasadda Maraykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maaragtay intuu yimid siyaasadihii hore ee Obama iyo intii ka horeysay runtii wax weyn ayuu ka bedelay. waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istiraatiiji ahaan Maraykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo ISIS si maaragtay khataraha ay gobolka Afrikada bari ama geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. marka waxay kordhiyeen hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duuliyaha aan lahayn oo droonka ahaa ee al-shabaab lagu weerarayo lagu taarget garaynayay nimankooda hogaamiyaasha ah way kordhiyeen. waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka ah loo tababaro ee Soomaaliya. waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada al-shabaab lagu baacsanayo ama lagula dagaalamayo inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan. marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay waxweyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyada Maraykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya joogta, hadday noqon lahayd al-shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba. xaqiiqdii arrintaasna haddaan la samayn Soomaaliya sidaan ka warqabno dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada, laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaasi ay ku wajihi lahayd. marka qeyb ka mid ah hadda Maraykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeena waa qeyb runtii niyad ahaan iyo maaragtay iyo istiraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aada ugu baahneed. waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira. maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Maraykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan? ciidamada oo Africa ama African Union ama midowga Africa jooga iyo ciidamadan hadda Maraykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii. ciidamada Maraykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaaliya ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada. marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Maraykanka maaragtay xirfadahaas gaarka iyo khibraddaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas lagu sifeynayo al-shabaab ama lagula dagaalamayo. taas ayaa sabab u ah. laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda al-shabaab ay maaragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weeraradooda isdaba jooga ah, hadday noqon lahayd dhankan maaragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobolada maaragtay Puntland intaba. marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen
weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ah ay ka fulin jireen caasimadda soomaaliya muqdisho, maadaama dawladda ay dadaal aada u fara badan samaysay. waa askarigii labaad faqay oo maraykan oo lagu dilay gudaha soomaaliya bishii May ay ahayd. mid ayaa lagu dilay shabeellaha hoose, midkan ayaa hadda xiga oo Sanguuni area lagu dilay. marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada maraykanka ee gudaha soomaaliya ee al-shabaab lagula dirirayo? ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan? aniga hadda runtii ma arko wakti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto. Maraykanka dalal oo badan oo Afrika kamid ah oo ay Soomaaliya kamid tahay ayay ka dagaalamaan runtii, ama hadday noqon lahayd ciidana wadanka Central Africa. marka intaasna ciidamo ayaa uga dhintay, laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan. marka ma filayo in arrintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto. 1 iyo 2 askari ama 3 lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada al-shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga. kaasi waxa uu wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashe Ibraahim Aadan. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. aroor walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkiiyo warbixinnada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. haweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban. dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud uga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 425-585-1503 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com. weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. kooxda al-shabaab ayaa xalay wakhtigii afurka ku dishay degmada awdinle ee gobolka baay aabe iyo hooyo ku sugnaa gurigooda. xuseen barre aadan ayaa guddoomiyaha awdinle cali xuseen cali waxa uu ka waraystay sida uu dhacay dilkani. dadkaas way ahaayeen dad ganacsi ah oo dukaamo iyo waas ganacsanay, ayagoo xaafadooda aaday oo afureen oo gurigooda ay iska joogaan ayaa loo galay. 2 qofood oo isqabtay ahaayeen. imisadii ayaa gurigooda loo dhacay oo laga soo saartay? 20 ama 30 daqiiqo meelahaas oo kale ah. marka ma isla guriga hortiisa lagu dilay? gurigooda meeshii ay ku afureen ay fadhiyeen bay lagu dilay. wax caruur ah oo ay dhaleen ma jirtay? way jirtaa. ilmihii iyaa haya hadda? ilmihii maxay xaaladoodu waa sidee? kolley gabadha hooyadeed ayay haysaa hadda. ayada haysa. dadkii dilka geystay halkay tegeen markii dambe? kolley meel oo awdinla 25 kilomitir oo kala jirta ayay degan yihiin. nimanka ay ku jiraan awdinla markay ay ka baxaysay hoodkii oo la galo ilaa 60 kilomitir oo kale hood waaye. hoodkay ku jireen nimanka information iyo waxbaas bay ay ku hedeen. kolley markii falkaas sameeyeen hoodkooda ay galeen. markii aad dadka wareysatay maxay tahay bay kula tahay sababta loo beegsaday labadaas qof ee ganacsatada ah? labadaas qof oo ganacsatada ah wixii loo beegsaday kolley ilaa iyo hadda annaga ma fahmi karno. waa annaga aan koognahay ma jirto. dad oo nala degan oo awdin degan guryahooda ah, ganacsi ah oo ciidan iyo waxaasna aan la soconayn waayo. kolley wixii loo dilay annagu ma naqan. xaaladda degmadu iminka waa sidee? xaaladda degmada aadi way isku fiican tahay. kuwan wax dhow Malaysia oo isku imaaday wey. amniga meeshii ugu fiicneed bay ahayd. ma jiraan dad kale oo la beegsaday intaad ka warqabtid? meesha oo labadan laga dilay guri dariskooda ah ayay mar garaaceen. markii ay garaaceen oo laga furi waayey ayay dib usoo noqdeen. meeshaan furan bay arkeen, markaas bay galeen oo dileen. marka waxay u muuqdeen dad si gaara u raadinayay labadaas qof? dad si gaara u raadinayay ba ahaayeen.
dadka deriska ah dareenkooda sidee buu ahaa marka hawshan ay dhacday? kolley hadda deriska dareenkiisa caadi waaye isku degan yihiin. kolley dad oo deriskooda la dilay waaye khushuuc ay ku jirtaa. kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada awdiinle cali xuseen cali oo ka waramayey aabe iyo hooyo xalay xilligii afurka lagu dilay iyaga oo jooga gurigooda, waxaana sida la sheegay labadaasi qof ee isqabay dilay kooxda al-shabaab. waxa uu waramayey xuseen barre aadan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaana naga dhegeysan kartaan efemada magaalooyinka qariga caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu booqasho ku joogay jamhuuriyadda jabuuti. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa booqasho markii u horreysay ku yimid jabuuti isagoo uu qaabilay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle. ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa safarka ku wehelinaya oo kala qayb galay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha jabuuti wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya, wasiirka isgaadhsiinta iyo boostada ee soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa yeeshay kadib kulan gaara oo isku soo fadhiisteen labada dhinac ee Soomaaliya iyo Djibouti. ra-iisul wasaare Khayre ayaa kadib saxaafadda la hadlay. madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda reer Djibouti ayaan la kulmay. waxaan marka hore uga mahad celiyay shacabka reer Djibouti oo matalaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu hiilka ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin. waxaan u sheegay laga soo bilaabo Djibouti 1, Djibouti 2 iyo Carta in ay ahayd wixii dhaliyay dawladnimada Soomaaliyeed oo maanta maraysa meel wanaagsan. inaan shacabka reer Djibouti uga mahad celino dadaalkii ay nala galab istaageen, dhiiggii ay ku bixiyeen hiil walaal iyo ciidamada reer Djibouti ayaa maanta waxa uu dhaliyay ummadda Soomaaliyeed wadankeeda inuu marayo meel wanaagsan. waxaan u sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay aad ula sii shaqayso dawladda Djibouti iyo shacabka reer Djibouti oo walaalaha nahay ahna dalka aan isugu dhownahay. maadaama marka Soomaaliya ay soo hagaagayso inaan bilowno sidaan uga wada shaqayn lahayn arrimaha dhaqaalaha, arrimaha ganacsiga, arrimaha isu socodka, dib u dhiska dalka, in dawladda Djibouti iyo shacabkeedu ay gacan naga siiyaan. waxa uu ahaa wada hadal aad u wanaagsan, aad u hufan, ay ku dheehan tahay walaalnimo iyo kalgacaltooyo. waxaana loo soo dhaweeyay si aad u wanaagsan oo iyaduna aan aad ugu riyaaqnay. wada hadalladina waxay ahaayeen wada hadallo aad u wanaagsan. waxaana rajayn doonaa inay tusaale u noqon doonto qaabka mustaqbalkan usii wada shaqayn doona haddii ilaahay yiraahdo. ujeedadeedu waxay tahay sii xoojinta wada shaqaynta labada wadan, annagoo diiradda saaraynay xoojinta amniga labada wadan, dib u dhiska ciidamada dalka Soomaaliyeed, wada shaqaynta sidii dhaqaalaha geeska Afrika loo kobcin lahaa, gaar ahaan Soomaaliya hadda iyo dawladda Djibouti sida ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga hadda ka socda dalka Soomaaliyeed, iyo inaan iska kaashano siyaasadda labada wadan, siyaasadda geeska Afrika, siyaasadda dunida, iyo sida dawladda Djibouti gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo aan uga waday fariimo hufan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu noola qaadi lahaa shaqooyinkaas aan ku guda jirno. marka la soo koobo shirarkii aan galnay si wanaagsan ayay u dhaceen, si wanaagsanna waa naloo soo dhaweeyay. asaaska dawladnimada Soomaaliyeed oo maanta taagan oo ummadda Soomaaliyeed ay arkaan iftiin ka duwan kii hore, waxaa buddhig u ahaa dadaalka dawladda iyo shacabka reer Djibouti. hadda waxaan soo gaarnay waqtiga aan wax wada qabsan lahayn. Soomaaliya hadda waxay maraysaa waqtigii
iyada la maalgashan lahaa. Waxaan isweydaarsanay sidii aan u kala baran lahayn, sidii aan hay-adaha dowladda labada dowladood aan u dhisi lahayn, sidii aan maalgashi u samayn lahayn, sidii aan isugu xiri lahayn labada wadan iyo qaaradaba. waxyaabo badan oo Djibouti aan ka baran karnaa jirto siday ula dhaqmaan dunida, siday dalkooda dib ugu dhisaan, taariikhda ay soo mareen inta anagu aan dhibaatada ku jirnay. laakiin markii la soo koobo hadda waxaan ku sii ballanay inaan gacmaha sii qabsano maadaama aan nahay laba shacab oo walaala. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kadib u anbabaxay dhinaca degmada Cali Caade ee dalka Djibouti iyadoo halkaasi ay ku taalo xero qaxooti oo aad u ballaaran, isagoo halkaasina soo booqday xeradaasi qaxootiga ee dalka Djibouti ee ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan, iyadoo ay tahay markii u horeysay oo mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya uu soo booqdo xeradaasi qaxootiga. Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuu ku arkay xeradaasi qaxootiga ee Cali Caade ee dalka Djibouti dadka Soomaaliyeed ee degan, isagoo halkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida qaxootiga halkaasi degan aanay ahayn dad qaxootiya balse ay degan yihiin oo ay joogaan dalkoodii maadaama Soomaaliya iyo Djibouti ay yihiin laba dal oo walaala. Rabadaan Muuse, VOA, Djibouti. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna voasomali.com. bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA. waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, cawayska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha. haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Soomaalida ku nool qurbaha ayaa wada barnaamijyo kala duwan oo laga afurinayo dadka Sooman ee ku nool gudaha dalka ee aanan haysan wax ay ku afuraan. barnaamijka lagu magac daray walaal afuri ay wadaan Soomaali ku nool dalal kala duwan oo ay Canada ka mid tahay ayaa diray lacago isla Soomaalida ay ka soo ururiyeen si loogu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha Soomaaliya. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji. maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa jira samafalayaal ku deeqa lacago lagu afuriyo dadka danyarta ee ku nool gudaha Soomaaliya. qaar ka tirsan Soomaalida ku nool qurbaha ayaa sameeyay deeq ururintaasi waxaana kamid ah kuwa ku nool dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto. Yusuf Abikar Yow Baby oo kamid ah dadka waqtiga ku bixiyay ururinta lacagta la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ayaan ugu horeyn weydiiyay lacagta ay ururiyeen iyo halka ay gaarsiiyeen. walaal afuri waxaan wadnaa ilaa iyo sanadkii 2013 ilaa hadda oo ku jiro 2018 lacagaha ilaa hadda sanadkan aan gurnay ilaa $40,000 ayaan gurnay waxaana u dirnay Soomaaliya daafaheeda oo idin qaab waxaan ku aruurinaa caagag ayaan waxaa la dhaxgalnaa Somali community shilimaadkeena siyaan ayaan Soomaali ka qaadnaa Soomaali kale oo dalkii hooy jooga ayaan u dirnaa run ahaantii 40,000 inta hal maalin aan qaadno ma dirno laakiin lacagaha saddexdan week hadda aan gurno ay qiyaastii 40,000 lacagaha markaan qaadno oon gurno maanta oo kale markaan qaadno lacag isla markii waxaan u dirnaa Soomaaliya waxaan ka samaynay jikooyinkaasoo dadka lagu afuriyo waxaana samaynay dhalinyaro badan oo qurba joog ah oo nagala shaqaynaysa barnaamijka ayaa waxay joogaan Soomaaliya daafaheeda idil ayaga oo maareeya jikooyinkaas. Yusuf Abikar waxa uu tilmaamay in gudaha dalka ay u joogaan dad iyaga la shaqeeya si ay u hubiyaan in lacagta ay gaartay kuwa ugu baahida badan. lacagaha aan dirnay isla markiiba waxaana loo soo diraa masawiraan loo soo diraa iyo habkii loo maareeyay anuu laakiin ma soo saarno barta internetka iyo facebookyada qof maskiin ah oo aan wax siinayna ma soo saarno anaga habeen walaal afuri maskiin afur cunaayo ma soo saarno laakiin anaga ahaan sawiradii qaabkii raashinka loo diyaariyay qaabkii loo soo galo grocery wixii oo dhan waxaana loogu soo diraa sida hab gooni ah waan aragnaa waan maaraynaa. dhanka kale waxaa jira dhalinyaro isku bahaystay dhanka internetka oo jooga magaalooyin kala duwan kuwaasoo go'aansaday inay afuriyaan dadka qaba baahida gaarka leh ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyaradaasi oo ku nool magaalada Toronto ayaa ka hadlaya lacagta ay direen iyo waxa ay ku doorteen dadka ay afuriyeen.
waxaan baaragay aragnay lacagtan maaragtay $3,583 oo ka aruurinay dhammaan maaragtay dhalinyarta Soomaaliya meel kastoo dunida maaragtay kala joogo. Dhalinyartaas oo isugu imaaday maaragtay group loo yaqaano Global Somali Business and Professionals Network oo ah meel ay maaragtay dhalinyarta xagga aqoon isweydaarsiga ay ku sameeyaan. qaabkan ku aruurinayna wuxuu ahaa inaan diyaarinay page yar oo maaragtay wax loogu aruurinayo barnaamij afurin oo loogu sameynayo dadka maaragtay Soomaalida khaasatan dadka lixaadana dhamaystirneen. marka waxaa noo soo baxday in dadka ugu dhibaataysan ay maaragtay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. marka dadka dhexdooda markaan sii fiirinay haddana waxaan fiirinay dadkii oo kala daran yihiin ayaa usii daran maadaama lacag badan meeshii ka aroorin oo maaragtay barnaamijkii markii ugu horreysay uu ahaa waxaan maaragtay noo soo baxday in dadka maaragtay dadka aan lixaad lahayn dadka noocaas maaragtay u aragnay markii dadkaas dadka usii daranaysa yihiin. xarumaha ku yaala dalka ee lagu sameeyo afur wadareedka ayaa ka faa'iideysta dad badan oo aanan awoodin waxay ku afuraan. xuseen nuur xaaji VOA Toronto. aad iyo aad u mahadsan tahay xuseen. weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga VOA si toosa ayaan idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. bishii barakeysan ee Ramadaan ayaanu weli ku guda jiraa iyadoo gabagabadiina kusii dhow mar haddii 10kii dambe hadda lagu jiro. nabamaanadan idinku talagalnay inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaanu mid ka mid a idiin soo qabanaynaa. iskuma jiraan waxaan idiin soo qabanaynaa inta raacday nebiga rafiiqiisi noqotay oo rumaysaan noqonay ku sallaya rasuulka Allahumma salli ala Muhammad. codkii fanaanada Xaliimo Khaliif Magool nala dhageysta. codkaasi macaan ee Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Magool iyo nabi amaanka ku dhagiiso ahaa inta raacday nabiga waxa uu gabagabo u yahay idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. intaan mar kale kulmayno aniga iyo Xuseen Barre waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo Ramadaan Kariim. Salli
وعلى آل من هو